ardayda wax ka barata jaamacadaha wadanka Uganda ayaa la sheegay in iminka lagu bilaabi doono tirakoob si loo ogaado tirada saxda ah ardayda wax ku baranaysa wadankaasi Uganda. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. madashani oo ay ku sugnaayeen wakiilada jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka. kulanka ayaa looga hadlay ajandayaal dhowr ah waxaas diiradda lagu saaray suurtagalnimada tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. xubnaha madasha ku sugnaa ayaana dood iyo falanqeynba ka yeeshay fulinta ajandahaasi. haddii ay dhacdo in xafiiska uusan shaqeynayn doorashadiisa ama systemka asoo ku yimid dadka doortay ama gudiyada u yeeraya doorashada ugu yeeraya inuu gudoomiyaha jaamacadaas Certain University dooranaya inuu helo laftigiisu soo ogaado halka ka ogaado marka waa system fudud walaalayeen qaar way hayaanba oo tirakoob ku hayaan dadna way fududahay oo jaamacadda waday branch kala duwan leeyihiin waa laga yaabaa caqabad yar xoog ay ku tago kala fog yihiin kambasyadu laakiin wixii hal jaamacada yihiin anigu kale jaamacadda hadda intee gaan maahane diiwaangelintood guud waa haya registration waxyaabo ku guuleystay kamid ahayd oo waa haystaa hadda alxamdulillah ardayda jaamacadda ugu soo biirtinta keen oo sanad walba waa sameeyay registration cusub haddana waa haystaa alxamdulillah tirakoobkaas oo kale u baahan tahay anfacaya jaamacadda ka finish meeqa arday ay jirto oo Soomaaliya oo wax barato maxay kala bartaan ma master bay dhigtaan ma badge bay dhigtaan ma foundation bay dhigtaan oo u baahan tihiin waxyaabaha kale oo shaqeey karno waxa kamid ah in aan qabsano meeting loo dhan yahay jaamacadaha kaleeto ardayda matalayso iyo adika midowga la isku imaado laga sheekaysto arrimaha waxbarashada arrimaha ardayda not political not other issues sababtoo anaga ardayanahay ururkana waa urur ardayeed. intaasi kadib wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda mudane Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa wakiilada jaamacadaha ku amaanay hawsha ay u hayaan ardayda waxa uuna bogaadiyay gudiyada dardargelinta tirakoobka ardayda. marka hore waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo runtii hawsha wanaagsan ee u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee aad runtii gudoomiyaasha ugu tihiin ama aad ku matashaan jaamacadaha runtii aad ka socotaan oo arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan hawsha waxaana idinkula si haddii alla idinku sii dhiirigelin horta inaad shaqada halkeeda ka sii wadaan dabcan waana wada shaqeyn doonaa haddii Allah awood la helo haddii aynu nahay ardayda qaranka Soomaaliyeed ajandayaasheena inoo hirgalay waan isbaranay qaabkan ku wada shaqeyn lahayn iyadana sidoo kale iyo arinta tirakoobka iyaduna aan ka hadalnay runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed ka Foundation University walaalkay Victoria University ka socda oo runtii almost hadda number fiican wax fiican oo lagu farxaa in la wadaago ah inay la socdaan cadadkii ardayda halka jaamacadda wax ka baranaysa insha Allah waxaan idinka marka codsanaynaa inaad si dardargelisaan oo gudiyada jaamacadihiina aad arintaas la wadaagtaan oo aad dardargelisaan hawshaas iyada ah in tirakoobka cadadka ardayda jaamacadaha mas'uuliyadda ugu tihiin ardaydeena Soomaaliyeed inaad soo ogaataan oo tirakoobkii guud gudoomiyaashii adikoo wakiilada ah in tirakoobka sidaas oo runtii inoogu bilowdo wixii maanta ka dambeeyo insha Allah ayna ka wada shaqeyno. ugu dambeyntiina Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda KIU ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii kulanka ka soo baxay. kulanka waxaa looga hadlay saddex qodob. qodobka koowaad wuxuu ahaa inay isbartaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale inuu noqdo kulan looga hadlayo qodobkiisa labaad ahaa wada shaqeynta sida u yeelan lahayd gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ahaa arrimaha tirakoobka oo qodobkii saddexaad ugu muhiimsanay oo laga hadlayay ay ahayd maadaama la rabo in ardayda qaranka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay maaragtay la sameeyo programka one man one vote ah runtii aad aan ugu faraxsanahay wuxuuna ku soo dhamaaday si sharaf leh oo qiimo badan oo guul ah gudoomiyaashu intii ay fikradooda iyo karaankooda ahaayeen waxay ugu warbixiyeen wixii xog ogaalnimadooda ah ay ka hayaan systemka ardayda dalka Uganda sidoo kale waxay gudoomiyaashu iyo dalladuba isla soo meel dhigeen oo maaragtay si fiican uga niqaasheen sidii loo wanaajinayo xiriirka ka dhaxayda ardayda midowga qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardayda wax ku barata dalka Uganda aad aan ugu faraxsanahay inuu xiriirkan noqdo mid joogto ah. tani ayaa noqonaysa bilowga ballanqaad uu hore u shaaciyay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda
maxamed cusmaan daahiye Somali Cable TV